wacan oo wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybta xigtaa ee sheekada kun habeen iyo habeen alfa leyl waleyl waxaad tarjumay saaxiibkay cabdiraxmaan anteenno anigoo marcadda ayaa kula socodsiinaya. qaybtii hore waxay inoo joogta markii shaharzaad ay sheekooyin dhowr ay kaga sheekaysa ninkii boqorka ahaa oo habeenkii afraad ay badbaaday. haddaba habeenkii xigay maxaa dhacay? habeenkii xigta shaharzaad waxay sheekadii ay ku bilowday: boqoro waxaad ogaataa markii odagii kalluumaysatada ahaa cirfiidkii uga sheekeeyey sheekadii boqor yoonaan iyo xaakimkii rooyaan ayaa wuxuu odagii kalluumaysatada ahaa uu yidhi, cirfiidow haddii aad iska kiisii dayn lahayd waad badbaadi lahayd, laakiin waxaan go'aansaday in aad idisho. allana dhagartaada wuu iga qabtay, waxaadna noqotay sidii boqor yoonaan oo kale, anigana meeshaan kama bixin doono mar kale. waxaana uu ku yidhi, waan kugu tuuri doonaa moolka badda ilaa aad ka dhimato, meeshaas ayaadna ku jiraysaa. markaas ayuu cirfiidkii waxa uu yidhi, nin yahow ixsaan ii fal oo xumaantayda wanaag iigu bedela hana samaynin siduu uu umaamo uu u sameeyey caakita. markaas ayuu odagii kalluumaysatada ahaa wuxuu yidhi, oo muxuu u sameeyey? cirfiidkii ayaa markaasi hadalkii bilaabay oo waxa uu yidhi, anigoo halkaan maraya maxbuus ku ah kaagama sheekayn karo, ee iga fur oo iga bixi, halkaas ayaan anigana kaaga sheekayn doonaa, waana igu ballan in aana waxba ku yeelin, balse taasi beddelkeeda faa'iide ayay kuu noqon doontaa, anna aan kuu noqonayaa. laakiin odagii waa uu ka diiday, wuxuu yidhi, haddii aad markii hore idhaafi lahayd dhibkaani oo dhan ma imaadeen, ee ma adiga ayaa aniga mar kale aamin kuugu qabaya. cirfiidkii ayaa markaasi u ballanqaaday inuusan waxyeelo dambe uusan u geysan doonin una hanjabi doonin, isagoo ugu dhaartay inuu faraha ka qaadi doono. markii uu ballantaasi uu qaaday ayuu odagii go'aansaday inuu ka furo meeshiina uu ku xirnaana uu gebi ahaan ka soo saaro, isaga oo ballantaasi isku halaynaya wuuna ka furay. laakiin markii jinkii meeshii uu ka soo baxa ayaa intuu sanduuqii uu qabtay badda moolkeedii uu ku tuuray. odagii kalluumaysatada ahaa ayaa wuxuu isku naxay markii uu arkay arrinta dhacday, wuxuuna isdhahay, tani waa calaamad aanan qayr lahayn, ee in lagu dilo oo keliya ayaa kuu dhiman. waxaana uu ku yidhi, cirfiidow alle wuxuu yidhi ballanta ha la oofiyo, anigana waxaad iga ballanqaaday inaad waxyeello ii geysan doonin, ee iska kaysii daa. markaas ayaa cirfiidkii inta uu qoslay waxa uu ku yidhi kalluumaysatadii, isoo raac. wuuna waday, sidii uu u waday ayaa wuxuu geeyay meel magaaladii ka baxsan oo ay ku taalo barkad biyo ay ku jiraan, wuxuuna jinnigii odagii uu ku yidhi, shabaqaaga barkadaani ku tuuro. wuuna ku tuurtay, misena waxaaba ka soo baxay 4 kalluun oo kala midab ah. kalluun kastaana midab gooni ah ayuu wataa, noocooda oo kalena horey uma uusan arkin. odagii kalluumaysatada ahaa oo aad ula yaaban arrintaasi ayaa markaasi cirfiidkii wuxa uu yidhi, maalin kasta hal mar shabaqaada ku tuur halkan, wixii kuu soo baxana qaado, kadibna boqorka magaalada kalluunkaasi u geey, wuxuu kaa siin doonaa qiimo aad u fiican, qofna ha u sheegin wixiina dhex maray iyo sidoo kale meeshan aad kalluunka ka dabataba. kadibna cirfiidkii lugtiisii ayuu dhulka ku garaacay, iyadoo meeshii ay kala dillaacday, goobtii ayuuna dhex galay. ninkii odayga ahaa sidii ayuu yeelay oo kalluunkii ayuu qaaday, wuxuuna u geeyay boqorkii magaalada. kadibna boqorkii aad ayuu ula yaabay kalluunkani cajiibka ah ee aan noociisa horey loo arkin, wuxuuna amray in odaygaasi lacag fiican laga siiyo, sidii ayaana lagu siiyey. kadib boqorkii wuxuu kalluunkii u dhiibay wasiirkii dhanka cuntada qasriga u qaabilsanaa, isagana wuxuu usii dhiibay jaariyad boqortooyada ku cusbayd oo markaasi uu boqorka roomaanka usoo hadiyadeeyey. markaas ayay jaariyaddii kalluunkii ay qaaday oo jikadii ay geysay. markii ay dabkii ay saartay ayaa daaqadda jikada waxaa soo istaagay gabar jinni ahayd oo aad u labisan, waxaana ay dhahday, kalluun yahow, welima ballantii ayaad ku jirtaa. markaas ayuu kalluunkii madaxa inta uu soo qaaday oo ruxay, wuxuu yidhi, haa. gabadhii jaariyadda ahayd markii ay aragtay arrintaasi waa ay suuxday. markaas ayay gabadhii markii ay soo naxday waxay aragtay kalluunkii oo gubtay, iyada oo naxsanna waxaa u yimid wasiirkii kalluunka, waxaana uu ku yidhi, aaway kalluunkii. markaas ayay jaariyaddii ugu warrantay wixii dhacay oo dhan. wasiirkii oo yaaban ayaa wuxuu u wacay ninkii kalluumaysatada ahaa, wuxuuna ka dalbaday in 4tii kalluun kuwa la mid ah mar kale uu keeno. markaas ayaa ninkii kalluumaysatada inta uu baxay barkadii uu tegay, wuxuuna soo dabay kalluunkii isagoona u keenay wasiirka. markaasi kadib wasiirkii kalluunkii ayuu u dhiibay jaariyadda, isagoo oo ku yidhi, bal markaan aniga ku arkaya ayaad karinaysaayo ogow.
markaasi ayaa jaariyaddii kalluunkii inta ay qabato oo dabkii ay saartay, balse markii dabkii ay saartay ayaa sidii oo kale daaqadii jikada waxaa soo istaagay gabadhii jinka ahayd iyadoo kalluunkii ku tiri, kalluun yahow welima ballantii horaad ku jirtaa. markaas ayuu kalluunkii inta madaxii kor u soo qaaday wuxuu ku yidhi haa maxaa dhacay habeenkii 7aad. markii wasiirkii arrintii uu arkay ayaa waxa uu yidhi, arrintaani waa arrin aana laga aamusi karin, waana in boqorka aan u sheegnaa. markaas ayuu boqorkii u sheegay. boqorkii markii loo sheegayna wuu aamini waayey, uuna rumaysan waayey oo wuxuu yidhi, indhahayga inaan ku arka ayaan doonayaa. markaas ayaa waxaa loo wacay odagii kalluumaysatada ahaa oo kalluunkii inuu keeno ayaa mar kale laga dalbaday. wasiirkiina wuxuu ku yidhi, markaani adiga biri kalluunka wasiirka ayaa kalluunka kula soo dabi doona kulana soo saaraya ogow. laakiin sidii markii hore oo kale ayaa dhacday. boqorkii markii uu arka ayaa wuxuu kalluunkani xaalkiisa uu noqday mid uusan u bogin oo wuxuu yidhi, aniga hala ii keeno. ninkii laga soo gaday ayaa markaasi u dalbaday in loo keeno oo waa loo geeyey. markaas ayaa la geeyey odagii kalluumaysatada ahaa. markii la weydiiyey wuxuu tilmaamay in uu kasoo dabtay barkad u dhow buurta Heblaayo oo loo tilmaamay ninkii boqorka ahaa. markaas ayaa boqorkii wuxuu yidhi, imise maalmood ayaa barkadaasi loo soconayaa? laakiin odagii wuxuu ku jawaabay, boqoroo wax ka yar nus saac. boqorkii hadalkaasi aad ayuu ula yaabay, wuxuuna amar uu ku siiyey ciidankiisa oo dhan inay soo baxaan, isaga oo aaday meeshii loo tilmaamay. waxaana soo raacay ninkii kalluumaysatada ahaa oo cirfiidkii habaaraya. sidii loo socday markii barkadii la tegay oo ay wada arkeen ayaa dadkii ay yaabeen, waxaana ay la yaabeen barkadda meesha ay ku taallo oo ahayd meel aysan ku ooli jirin iyo kalluunkeeda kala nooca ah. markaasi kadib waxaa hadalkii qaatay boqorkii. inta uu dadkii uu ka dhex kacay ayaa wuxuu yidhi, waan ma jiraa qof barkadaani horay u arkay? markaas ayaa dhammaantood waxay ku jawaabeen, maya boqorow. markaas ayaa boqorkii wuxuu yidhi, waxaa igu ballanaya inaan boqortooyadeeda aan u noqonin kuna fariisan qasrigayga aniga oo aanan soo ogaanin xaqiiqda ka dambaysa barkadan iyo kalluunkeedaba. markaas ayaa boqorkii amar wuxuu ku siiyey ciidankiisii inay meesha ay degaan. kadibna wuxuu u wacay wasiirkii, kaasi oo ahaa midka ugu caqli badnaa, waxaana uu ku yidhi, waxaan go'aansaday inaan keligay aan baxo oo qofna aysan i raacin soona ogaada halka barkadan iyo xaqiiqdeedaba ay ka timid. marka adiga waxaad samaysaa, waxaad hor istaagaysaa tiindhadayda, qofna uma ogolaanaysad in uu soo galo, una sheeg qofkii u baahan inuu arko inaan mashquulsanahay aniga ilaa aan ka soo laabanayo. markaas ayaa wasiirkii sidii uu yeelay, waxaana boqorkii uu habeenkii saqdii dhexe uu noqday mid guureeya. wuxuu uu socdaba muddo maalmo ah oo safar uu ku jira ayaa maalintii dambe waxaa ku soo baxay qasri aad u madow, lagana sameeyey dhagxaan aad u madow. wuxuu leeyahay 2 albaab oo midkood uu furnaa kan kalena uu xirnaa. markii boqorkii uu arkay ayuu aad u farxay, wuxuuna isiri, waxaa laga yaabaa qofkuu warrama inaad ka hesho halkan. markaas ayuu qasrigii hor istaagay boqorka, albaabkiina uu garaacay. idin ahaan ayuu goobtii u istaagay, laakiin waxa uu idmo inuu gudaha u galo ayuu waayay. cabbaar markii uu garaacay qof ka furana uu waayay ayuu markii dambe qasrigii isaga galay. markaas ayuu la yaabay quruxda iyo bilicda qasrigan. wuxuu noqday mid ku dhex wareega xoogaa, laakiin qofna waa uu ka waayey. waxaana qasrigani ka buuxay alaab ama maacuun aad u tiro badan, waxaanay ka samaysnaayeen dahab, waxaanay u muuqdeen in goobta qofna aysan joogin oo alaabtaasi ay isticmaalaysay. cabbaar markuu qasrigii uu ku wareegay qofna uu ka waayay ayuu markii dambe meel iska fadhiistay isaga oo yaaban. laakiin wax yar kadib ayuu shanqar sida qof soo socda oo kale uu maqlay, waxaana shanqartay u ekeed sida qof xanuun haya. markaas ayuu boqorkii wuxuu soo aaday dhankii shanqarta uu ka maqlay, misne waaba wiil sariir kor saaran, go'na uu ku huwan yahay, murugani ay ka muuqato. markaas ayuu boqorkii wiilkii salaamay, waxaana uu ku yidhi salaantii markii uu ka qaaday kadib waa uu xaal waraystay oo wuxuu boqorkii uu yidhi, waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo. markaas ayaa wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay, i weydii su'aasha aad doonto. kadib boqorkii ayaa wiilkii u warramay, wuxuuna ka waraystay barkadii iyo sidoo kale inuu ugu xaal warramo. wiilkii markii hadalkii boqorka uu maqlayna ilin ayaa ka soo daadatay oo waaba uu ooyey, isagoo aad weliba u baroortay. markaas ayuu boqorkii uu yidhi, maxaa kaa ooyansiinaya wiilkaygiyow? wiilkiina waxa uu ku jawaabay, oo maxaan u ooy waaye iyadoo xaalkayga sidaan uu yahay. markaas ayaa wiilkii wuxuu go'ii uu huwanaa uu noqday mid uu iska qaado. wiilka qaarka dambe ee hoose ee xuduntiisa wixii ka hooseeya dhagax ayuu ka yahay, inta kalena bini'aadam. markaas ayaa boqorkii inta uu yaabay waxa uu ku yidhi, wiilkay maxaa kugu dhacay oo xaalkaani muxuu yahay?
wiilkii ayaa markaasi wuxuu yidhi boqorow waxaad ogaataa in buurahan aad u jeedo ee 4 ah inta u dhaxaysa ee magaalo ay ahaan jirtay, waxaana ka talin jiray aabbahayga muddo 70 sano. kadib markii uu dhintay anigii xilka ayaan la wareegay. waxaan guursaday ina adeertay oo ahayd gabar aad u qurux badan. waxay ii jecleed si aad u daran, weligeena ma aanan arkin qof sideeda oo kale ii jeclaaday. heer waxay gaartay xitaa haddii aan ka maqanahay waxba aysan cunin oo xitaa biyo aysan cabin. gabadhaasi waxa aan qabay muddo 5 sano ah. maalintii dambe ayaa waxaa dhacday cunto kariyihii ayaa waxaan ku amray inuu casho fiican u noo soo diyaariyo. kadibna waxaan u wacay 2 jaariyadood si ay iigu riixriixaan. anigoo sariirta saaran iyagana ay ii riixriixayaan ayaan lulmooday oo hurdo ayaa i qabatay. laakiin hurdo weyn ma aysan ahayne waan gam'ay oo keliya. markaasi kadib ayaan waxaan maqlay 2 jaariyadood oo sheekaysanaya. mid ayaa waxa iigu tiri boqorkeenna waa nin maskiin ah oo kama warhaya dhagarta ay naagtiisa habeen kasta ay u maleegayso. waxay samaysaa habeenkii markii uu cashaynayo ayay cabitaanka binji ay ugu dartaa. kadibna marka sariirta uu tago ayuu seexdaa hurdo uusan ka soo kici karin. iyadana way baxdaa oo waxay imaadaa subaxii hore iyada oo kadibna wax ku qiiqisa si uu u soo kaco. hadalkaasi markii aan maqlay aad ayaan u naxay oo haddana murugo ayaa ii timid, mana aanan u jawaabin gabdhihii. kadibna habeenkii markii la gaaray oo aan cashaynayay ayaan sharaabkii la ii keenay, laakiin ma aanan cabina. waxaan iska dhigay qof cabay oo kale waana seexday. cabaar kadib naagtaydii ama xaaskaydii ayaa ii soo gashay iyada oo leh naga seexo oo weligaa ha soo kicin, waanba ku nacee adiga iyo muuqaadaba. kadib ayay labisatay labiskii ugu bilicda samaa waana ay iscarfisay iyada oo weliba seefteedii sii qaadatay waana ay baxday. isagoo hadalkii sii wada ayaa wuxuu yidhi waan ka daba baxay iyada oo aanan dareemin. waxaana daba socday muddo dheer. waxaa markii dambe ay gashay guri qasri u eg oo aadna u sharaxan. waxaa qasrigaasi ku jira wiil aad moodo in bashintiisa hoose digsi ay u eg tahay, halka midda korana ay u eg tahay daboolka digsiga. wuxuu afkiisa ku gurbinaya dhagxaanta yaryar ee quruuraxa loo yaqaano, kuwaas oo dhulka daadsanaa. markii uu arkay xaaskaygii oo u soo gashay ayaa waxa uu ku yidhi naahoogto maxaa kugu dhacay oo aad u soo daahday? saaxiibaday mar hore ayay inta ay baashaaleen ay kala tageenna anigana saacan keligay ayaan halkan fadhiyaa. markaas ayaa waxay ku tiri waad og tahay sayidkaygiiow inuu iqaba ina adeerkay wejigiisa ha gubtee. haddii aan adiga aan kuu baqi lahayn magaalada mar hore ayaan ka dhigi lahaa mid qarriban, waana baabi'in lahaa si ay isu beddesho meel dugaagta ay ku nool yihiin oo dadka dhan ka caagan. markaas ayaa wuxuu ku yidhi naayaa beenleey ayaa tahay, aniga beentaasi ha ii sheegin. waxaadna ogaataa haddii maanta kadib adiga oo xilligani oo kale aad socda aan ku arko inaan mar dambe aan ku taaban doonin qaa'imad yahay. markii hadalkaas iyo bahdilaada loo geysanaya aan maqlay ayaa adduunkii oo dhan uu ila madoobaaday. ciil aad u daranna waa u iqabtay. xaaskaygii waxay jilbaha ay ku dheggan tahay ninkaasi oo ay tuugaysaa iyada oo leh qalbigeygiyow, xabiibkii aan jeclaayow, nuurkii indhahaygiyow iyo waxyaabo la mid ah. ilaa uu raalli uu ka noqda ayaa markaasi ay faraxday oo dharkii ay iska siibtay iyada oo weydiisatay waxay cunto. markaas ayaa wuxuu u tilmaamay weel ay wax ku jireen, mise waaba lafa la dubay. kadibna intay cuntay ayay ninkii madoobaa hoosta ka gashay. markii aan arkay kadib waxa ay samaynaysa xaaskaygii ayaan waxa ay qabtay xanaaqii adduunka. inta aan dareemay ayaan go'aansaday in labadoodaba aan isku dilo. waxaan la soo baxay seeftaydii waxaana qoorta aan uga dhaftay ninkii anigoo u malaynaya inuu dhintay. markii Shahrazad sheekada halkaasi ay marinayso ayaa waxay ogaatay subaxii in la gaaray. markaas ayay sheekadii halkaasi ku joojisay. maxaa dhacay habeenkii 8aad? wiilkii boqorka ahaa ee sheekadii isaga oo sii wada ayaa wuxuu yidhi markii aan addoonkii madoobaa seefta ku dhiftay waxay uga dhacday dhuunta ama surka iyada oo ay goyso maqaarkii iyo hungurigii. waxaana u malaynaya inaan dila. meeshana waxayba ahayd meel mugdi daran ah oo si fiican la isku arkaynin. markaas ayaa addoonkii wuxuu noqday mid quuriya. kadibna xaaskaygii ayaa soo booday oo inta ay qaaday wax aanan fahminna akhrisay ayay la baxday. aniga oo aad u yaaban kana shakisan inay aragtay iyo in kale ayaan soo baxay. waxaana aan imid qasrigii waxaana isku dayay in aan isqariyo aniga oo iska dhigay mid go' wata oo aanan waxba ogeyn. markaas ayay subaxii ay imaaday iyada oo xiran dhar madow. waxaana igu tiri waxaa isoo gaaray in qof qaraabadeena ka mid ah uu dhintay oo dhanka hooyo iga soo gala. marka tacsi ayaa ii taale waxaan rabaa quba yar inaad ii dhisto.
markaas ayaan ka ogolaaday aniga oo ka xun inaanan dilin iyada, waxaana ku gaadaya fursad kaleento, balse markii dambe waxaan ogaaday in ay qubada ay dhistay ay ku haysa addoonkii madooba oo dhaawaciisa aad u darnaa. markaas ayaan waxaan soo qaatay seefteydii si aan labadooda kurka uga gooyo, balse markii aan usoo gala hadal aanan fahmaynin inta ay tiri waxay igu soo fardhisay waxaanan ogeyn. kadibna sidaan aad u jeedo ayaan noqday oo qaarka hoose ayaan dhagax ka noqday. sidaasina waxaa yidhi ninkii boqorka. xaaskaygii intaasi kuma aysan ekaanina waxay sixirtay magaaladeydii oo dhan oo isu badashay qaraabka aad u jeedo ama goobtan aad hadda ku jirno. waxaana magaalada ku noolaa 4 nuuc oo dadka ah, kuwaas oo kala ah muslimiin, yahuud, nasaaro iyo sidoo kale majuus. dhammaantood waa ay sixirtay iyaga oo isku bedelay 4 nuuc oo kalluunka ah oo aad sheegtay inay ahaayeen kuwa ku jira barkadda. intaasi kuma aysan ekaanina maalin walba way ii imaan jirtay oo way i garaaci jirtay, galabtiina way i daaweyn jirtay. markaas ayaa boqorkii wuxuu yidhi, murugtii i haysay waxaad iigu sii dartay murug kale ee aaway naagta aad sheegayso, hadda xaggee ayay joogtaa? markaas ayaa wiilkii wuxuu yidhi waxay ku jirtaa qubadii oo maalin kasta ay imaado, waxaana u timaadaa ninkii madoobaa ee dhaawaca ahaa, kaasi oo aanan hadli karaynin, wax dhaqdhaqaaqana samayn karaynin. markasta oo ay ka tagtana aniga ayay ciqaabtaa. markaas ayaa boqorkii wuxuu yidhi, sidaan iyo xaalkan kaagama tegi doono, wax kasta oo aan awoodana waan kuu samayn doonaa, sidii aad naagtaasi aad ugu xiroobi lahayd ugana aarsan lahayd. kadib wiilkii ayuu la fadhiistay ilaa waa berigii. markii uu waagii baryay ayuu boqorkii dharkiisii soo dhuuqsaday, seeftiisiina la baxay, wuxuuna galay qubadii ama dhismihii ninkii dhaawaca ahaa ayuuna ugu tegay. markaas ayuu korkii ka gooyay, kadibna inta uu ku soo jiiday ama bannaanka uu soo dhigay wuxuu ku dhex riday ceel meesha ku yaalay. kadibna boqorkii wuxuu gashaday dharkii addoonkii madoobaa, go'aysiina wuu u hubiyey, seeftiina hoosta ayuu gashaday oo sariirtiisii ayuu seexday. wax yar kadib waxaa soo timid goobtii haweenaydii la sugayay ee xaaskiisa ahayd ninkii dhagaxa noqday. markii hore waxay u gashay wiilka boqorka ahaa ee lugaha dhagaxa ka ahaa, markaas ayay garaacday, weliba si xun ayay u garaacday. kadibna waxay u gashay boqorkii oo ku jira qubadii, isagoo iska dhigaya addoonkii madoobaa. inta go'iisii uu huwanaa ay ka qaaday ayay u gashay, waxaana ay ku tiri, sayidkaygiiyow ila hadal, maalintii uu dhibkaani ku soo gaaray ilaa haatan waan murugaysanahay, farxaddaydiina adiga ayay kugu xiran tahay, ee hal mar oo keliya ila hadal. markaas ayuu boqorkii hadal daciifa kula hadlay oo uu fahmi weysay. markii ay maqashayna aad ayay u faraxday, wayna rumaysan waysay. kadibna cod daciifa ayuu ku yidhi, aniga waxaan la caafimaadi la ahay waa cuqubada ninkaada, ee haddii aad rabtid inaan caafimaado, sicirka aad ku xirtay ka furfur kana qaad. markaas ayay naagtii oo aad u faraxsan waxay tiri, waayahay, isla hadda ayaan ka qaadayaa. markaas ayay inta ay sixirkeedii akhrisay, wiilkii boqorka ahaa sixirkii ka furtay. markaas ayuu wiilkii sidiisii hore uu ku soo noqday. kadibna intay ila hadashay ayay igu tiri, isaga tag meeshaan, yaanan ku arkin mar kale markaas ayuu wiilkii goobtii isaga tagay. kadibna inta qubadii ay soo gashay ayay tiri, sayidkaygiyow, go'ani iska qaad aan ku arka markaas ayuu boqorkii wuxuu yidhi, adiga maxaad suubisay? faracii bis ayaad iga daaweysay, iyadoo asalkiina aad ka tagtay. ma sidaan ayaad iigu jeceshahay? markaas ayay tiri, waa maxay asalka aan ka tegay, bal ii sheeg. markii sidaasi uu ku yidhi ayaa wuxuu ku yidhi, adiga magaaladii aad dadkii deganaa oo dhan aad ka sixirtay ee kalluunka aad u badashay, wasow ma ahan halkii la doonaya inaad halkoodii ku soo celiso. maalintaas ilaa habeen kastaana way ahbaaraan dadkaas, oo adiga ima aad rabtide, haddii kale dadkaasi soo celi si aan aniga caafimaadkaygii u helo. markaas ayay inta ay soo baxday oo sixirkeedii akhrisay magaalada sideedii ku soo celisay, oo dadkii halkoodii ayay noloshoodii ay kasii wateen. kadib ayay inta ay faraxday boqorkii u soo gashay, waxaana ay ku tiri, sayidkaygiiyow ii ogolow inaan kuu soo dhowaado oo gacantaada aan dhuunkado. markii ay sheekada halkaasi ay maraysay, Shahrazad waxay ogaatay in subaxii la gaaray, halkii ayayna sheekada ku joojisay. maxaa dhacay habeenkii 9aad? kadib markii boqorkii ay ka codsatay inay u soo dhawaato si ay gacanta uga dhunkato, ayaa waxa ay tiri, soo dhawow. waxa uu boqorkii ku yidhi, soo dhawow. markay u dhawaatayna seeftii hoosta ugu jirtay inta uu la soo baxay, wadnaha uu kaga suray, isaga oo dhabarka ka sii bixiyey, kadibna 2 qar u kala jaray gabadhii.
markii uu dilay gabadhii ayuu sidoo kale qubadii boqorkii ka soo baxay ama dhismihii, waxaana ka hor yimid wiilkii boqorka ahaa oo aad u faraxsan. halkii ayuuna boqorkii ugu mahadceliya, wuxuuna weydiiyey, ma boqortooyadaadii ayaad ku noqonaysaa mise halkan ayaad joogaysaa? markaas ayaa boqorkii wuxuu yidhi, waxaan kasoo tegay ciidankaygii oo meel cidla ah jooga, marka waa inaan deg deg u laabtaa. markaas ayaa boqorkii wuxuu weydiiyey, imisa ayaad u malaynaysaa inay boqortooyadaada kuu jirto? boqorkii wuxuu ugu jawaabay, 2 ilaa 3 maalin kama badna. markaas ayaa waxaa dhoolla caddeeyey wiilkii boqorka ahaa, waxaana uu ku yidhi boqorkii weynaa, magaalada aad ii sheegtay waxay inoo jirtaa oo aad u soconaysaa muddo bilooyin ah. sababta aan sidan isugu soo dhaweynayna waa sixirka uun. halkaani nala joog in muddo ah, waxaana kuu ballanqaadayaa in magaaladaada si nabadgelyo aan kugu geeyo. kadibna boqorkii in muddo ah ayuu wiilkii yaraa la sii joogay. muddo markii ay kasoo wareegatay waxaa la go'aansaday in boqorka la gelbiyo oo boqortooyadiisa la geeyo. sidii ayayna isku soo raaceen labadii boqor iyo askartoodii, waxaanay jidkay kusoo jireen muddo bilooyin ah. kadibna waxay yimaadeen halkii ay joogeen ciidankii boqorkii weynaa, oo si ay boqorka ay u sugayeen qaati bilaahi taagnaa. halkaasina labadii boqor ayaa lagu soo dhaweeyey. wasiirkiina waxaa looga warramay sheekadii ka dambeysay 4 kalluun ee kala nooca ahayd ee barkadii biyaha ahayd laga soo saari jiray. kadibna waxaa loo wacay odagii kalluumaysatada ahaa ee sababta u noqday in magaaladani oo dhan sixirka laga qaado. waxaana la weydiiyey xaalkiisa iyo haddii carruur iyo waxyaabo lamid ay u joogaan. wuxuuna u sheegay in xaaskiisa iyo 2 gabdhood oo u dhalatay uu la nool yahay. markaas ayaa gabdhihiisii gabar ka mida loo guuriyey wiilkii boqorka ahaa, halka gabadhii kalena uu guursaday boqorkii weynaa. sidaas ayuuna odagii kalluumaysatada ku noqday sodoga 2 boqor oo ka mid a boqoradii ugu waaweynaa adduunka waqtigaasi. kadib markaasi ayaa sheekadii halkaasi ay maraysay Shahrazad waxay tiri, waxaa ka yaab badan sheekadii tii xamaaliga iyo gabdhihii. markaas ayaa boqorkii wuxuu yidhi, maxay ahayd sheekadaas? sheekadii xamaaliga iyo gabadhana waxay ahayd, wuxuu ahaa wiil yar oo muuqaal dabiici lahaa, aadna u bilicsan, laakiin wuxuu ahaa wiil iska danyar ah oo waxba aanan haysan, wuxuuna ku noolaa magaalada Baqdaad. sidaasi daraaddeed nolol maalmeedkiisa wuxuu ka dhacsan jiray xooggiisa, oo wuxuu ahaa xamaali dadka suuqa uga soo adeeg doonta alaabta u qaada. maalintii dambe ayaa waxaa dhacday isaga oo aan wax shaqo ahaynin suuqa, isagana dhex jooga halkaasi kuna santeecsan gaarigii uu alaabta ku qaadi jiray. waxaa soo kor istaagtay gabar, taasi oo ku labisneed dhar xariir ka samaysan, aadna u asturan, waana ay weji dadneed. markaas ayaa inta ay xijaabkii wejiga u saarnaa iska qaada amba indhashareerkii, waxay ku tiri, soo qaada gaarigaada oo isoo raac. markaas ayaa wiilkii kor madaxii u soo qaaday, balse wuxuu arkay gabar aad u qurux badan oo indho madow korkeedana uu liisho uu yahay, tilmaan kasta oo qurux badanna lahayd. markaas ayuu xamaaligii soo qaaday gaarigiisii, waana uu soo dabagacay ilaa uu ka imaaday albaabkii dukaanka. waxayna dukaanlihii ay siisay 2 diinaar iyada oo kasoo qaaday qiyaas xoogaa zaytuun ah, waxaanay u dhiibtay xamaaligii. kadibna waxay u tagtay nin miraha fawaakihada ah iibiya. waxay kasoo iibisay nooc kasta oo miro ah, waxaanay u dhiibtay xamaaligii. kadibna waxay u tagtay kawaanlihii, waxay kasoo iibisay 10 roodal ama kiilo oo hilib ah, iyadoo u dhiibtay xamaaligii. kadib waxay u tagtay nin iibiya waxyaabaha carfa sida catarada, miskiga, cuudka iyo waxyaabaha la midka ah. waxay kasoo iibsatay shumac iyo nooc kasta oo ka mid a waxyaabaha carfa. xamaaligii ayaa loo dhiibay. ninkaasi ayaa xamaaligii markaasi wuxuu yidhi, haddii aan ogaan lahaa in suuqa oo dhan wax yaalla aad soo iibsanaysid, waxaan soo kaxaysan lahaa baqashayda. markaas ayay dhoolla cadaysay oo waxay tiri, isoo raac. kadibna waxay u tagtay nin iibiya raashinka iyo cutooyinka, iyada oo dhowr kala nooc oo raashina kasoo iibsatay. kadib sidii u soo waday ayaa waxaa la sheegay inay u keentay goob aad u qurux badan oo loo sharxay muuqaalkiisii horena kusoo jiidanayso. albaabkii ayay garaacday si tartiib ah, isagoo isla markiiba uu furmay. sidii ayuuna albaabkii sidii qof taagnaa oo kale oo la sugayay horey laga furay. markaas ayaa wuxuu firiyey qofkii albaabka furay, miseba wuxuu arkay gabar aad u da'yar, shaf yar oo taaganna lahayd, waxaana ay lahayd indhaha deerada oo kale, dhabanna suuban, sunniyo sidii bil hadda dhalatay aad moodo, san dhuuban, af yar oo aad u qurux badan, weji ifaya sidii dayaxa oo kale, calool yar iyo dhex dhuuban. markii uu wiilkii xamaaliga ahaa arkay gabadhaasi wixii quruxda adduunka ahaa kulansatay, ayuu ku sigtay in alaabtii uu waday goobta ku daadiyo. kadib maxaa dhacay? halkaasay noo joogtay qaybtaani ku saabsan sheekada Kun habeen iyo habeen, Alfa Leyl Waleyl.
waxaa tarjumay cabdiraxmaan anteenna anigoo marcadda ayaa kula socodsiinaya qaybta